Dadka intooda badan xog dhammaystiran kama haystaan kombiyuutarada ay iibsanayaan. Ugu horreyn, intaadan iibsan kombiyuutar, waxaa muhiim ah inaad ogtahay ujeeddada iyo hawsha aad u adeegsan doontid kombiyuutarka. Ma waxaad u adeegsanaysaa inaad qoraallada caadiga ah ku qoratid, ama waxaad ku agaasimaysaa sawirro iyo muuqaallo? Ma waxaad ku keydinaysaa casharrada iskuulka iyo jaamacadda, ama waxaad rabtaa kombiyuutar fudud oo aad safarada u qaadatid? Ujeeddada iyo muhiimadda ay leedahay hawsha aad u adeegsan doontid ayaad ku saleyn doontaa tayada iyo qiimaha aad ka bixin doontid kombiyuutarka. Muuqaalkan wuxuu kaa saacidi doonaa inaad hesho xog dhammaystiran oo ku saabsan waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u iibsato kombiyuutar original ah oo aan wax ceeb lahayn. Assalaamu calaykum. Haddii aad tahay arday barta ama raba inuu barto cilmiga engineering, IT, ama kulliyadaha u baahan inaad kombiyuutar ku shaqayso, muuqaalkan aad ayuu kuu anfacayaa. Waxaan kuu tilmaami doonaa qaybaha ugu muhiimsan ee aad kombiyuutarka ka fiirinayso. Processorku waa maskaxda ama matoorka kala socodsiiya howlaha kombiyuutarka. Kuwa ugu caansan waa Intel Core i3, Core i5 iyo Core i7. Kan ugu fiican waa Core i7. Dhammaan barnaamijyada muhiimka ku ah oo aad u baahan tahay wuu kuugu shaqaysiinayaa. Nooca uu yahay processorkuna badanaa kombiyuutarka waxay kaga qoran tahay keyboardka hortiisa dhanka midigta ah. RAM waa halka si ku-meel gaar ah loogu keydiyo akhbaarta uu processorku markaas gacanta ku hayo iyo borograamyada markaa shidan. Waxay ka mid tahay qaybaha ugu muhiimsan kombiyuutarka marka laga yimaado processorka. Waxaa jira cabbiro kala duwan oo RAM ah. Haddii aad rabto inaad kombiyuutarkaaga wax ku akhrisato, wax ku daawato, amaba internet ku isticmaasho, waxaad dooran kartaa RAM 4GB. Haddii aad rabto inaad kombiyuutarkaaga ku isticmaasho borograamyo waaweyn, waxaad u baahan tahay RAM 8GB. balse waxaa ugu fiican RAM 16GB. Dhammaan barnaamijyada kombiyuutarka aad u baahan tahay inaad ku isticmaasho wuu kuugu shaqaysiinayaa. Hard disk. Waxaa jira laba nooc oo hard disk ah. Nooc la dhaho SSD. Noocan qaadkiisu wuu yar yahay, laakiin xawaarihiisu wuu sareeyaa. Nooca labaad waxaa la dhahaa HDD. Noocan qaadkiisu wuu weyn yahay, laakiin xawaarihiisu wuu hooseeyaa. Ballaca shaashadda screen size. Ballaca shaashadda kombiyuutarka aad dooranaysid waxay ku xiran tahay waxaad u adeegsanaysid kombiyuutarka. Tusaale ahaan, 13 ilaa 14 inji wuxuu ku habboon yahay laptop loogu talagalay safarada oo aad mar kasta qaadan kartid. 15 inji waa nooca ugu badan ee la xusho. Dhammaan borograamyada aad u baahan tahayna wuu qaadanayaa. Operating system. Operating systemku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood, 64-bit iyo 32-bit. Waxaa ugu fiican 64-bit, waayo 32-bit haddii uu RAM-kaagu yahay 4GB, 8GB ama 16GB, kuuma oggolaanayo inaad ku wada isticmaasho. RAM-ka qayb ayuu kaala harayaa. Ugu dambeyn, waxaa jira shirkado badan oo soo saara kombiyuutarka sida HP, Toshiba, Dell iyo kuwo kaloo badan. Waxaa ugu fiican HP ama Dell. Haddaba waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso, sideen ku ogaan karaa kombiyuutarka aan iibsanayo nooca uu yahay processorkiisu, RAM-kiisa iyo operating systemkiisa? Way fududahay. Hal mar ayaad waxaad tegaysaa Start bottom-ka. Kadib waxaad ka dooranaysaa Setting. Kadibna System ayaa kasii dooranaysaa. Dhankan bidixda ah ayaa waxaad ka dooranaysaa About. Waa kana qaybtan midigta ah ayay kaaga soo baxayaan. Muuqaalka maanta intaas ayuu ku egyahay. Haddii aad ka heshay
fadlan nagu soo biir adigoo taabanaya bottomka subscribe oo walaalkiin maxamed khayr oo khayr idin rajeynaya.